Somali Network Group SNG waxay idiin soo gudbinaysaa qaybteeda waxbarashada IT-ga ee ku aadan cilmiga networking-ka casharo isugu jira maqal iyo muuqaal iyo qoraal intaba ayadoo lagu sharxi doono af Soomaali. Ujeedooyinka SNG qaybta waxbarashada SNG waxay idiin soo gudbinaysaa cilmiga networking-ka kuwaas oo isugu jira maqal, muuqaal iyo qoraal taas ay ujeedadeedu tahay in ay ka caawiso da'yarta u helan in ay sare u qaadaan aqoontooda ku aadan cilmiga IT-ga qaybtiisa networking-ka ayadoo ay ku baranayaan afkooda hooyo af Soomaali. wax soo saarka SNG qaybta waxbarashada SNG waxay soo saaraysaa dhammaan cilmiga networking-ka iyo qaybaha la xiriira oo faahfaahsan oo ay idinku soo diyaarinayso af Soomaali ayagoo isugu jira maqal, muuqaal iyo qoraal intaba waxaana ka mid ahaan doona Microsoft Certified Information Technology Profession MCITB ama MCSE iyada oo la isticmaali doono practicalka software suura gelin kara in uu arday walba practicalada oo dhan uu ku suubiyo laptopkiisa ama computerkiisa asoo isticmaalaya softwarekaas la yiraahdo VMware Workstation waa software sahlaya in dhammaan practicalka la xiriira MCITB-da in uu ku sameeyo single computer ama single laptop. Cisco Certified Network Associate CCNA iyada oo aan isticmaali doona practicalka softwareka la yiraahdo Cisco Packet Tracer version 5.3 kaasoo suurta gelinaya dhammaan practicalka loo baahan yahay CCNA-da in lagu sameeyo in uu qofku hal computer ama hal laptop uu ku sameeyo asagoo softwarekaas uu u sahlayo in uu saacad kasta iyo meel kasta uu heli karo practical ku filan sida xilliga saxda ah ama real time-ka. Cisco Certified Network Profession CCNB ayadoo la isticmaalayo softwareka la yiraahdo GNStream oo ah software suura gelin kara dhammaan practicalka la xiriira CCNB-da qaybaheeda kala duwan haddii aan lahayd security-ga haddii aan lahayd voice-ka softwarekan wuxuu sahlayaa in uu ardaygu sameeyo practical xilli kasta suurtagal ahayn inuu ardaygu mar walba helo ama uu dhex joogo lab qalabaysan. kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cali Badi oo idin soo jeedinayay waxqabadka SNG Maxamuud Cabdi Dacar oo asna ka caawinayay qaybta farsamada. الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي waa salaamtiin waxaan idin soo gudbinaynaa Somali Network Group sida oo la socotiinba maadadan networking-ka waxaa idin soo gudbinaya Somali Networking Group waxaana idin tusi doonaa sida u wada shaqeyn doonaan virtualka this one and package tracer asagana waxaa kaloo idin tusi doonaa GNS3-ga dhammaan sida uga shaqeyn doonaan ayaan cabbi doonaa taasoo ay mataqaana ahaan doonto mid hore dhace kabacdi ayaan waxaan u qaadan doonaa insha allahu 10 sida mataqaana ay iskugu xiran networking-ka iyo barashadiisa. hadda waxaan idin tusi doonaa sida u shaqeyn doono Cisco Packet Tracer taasoo loo isticmaalo CCNA. double click ayaa ku siinaysaa waxaa kuu furmaya Cisco Package
وكاس دارب سيسكو باكيت تريس بل aynu tuso waxa kuma taqaana aan hore u diyaarino oo aan hadda rabno in hore dhaca in ka dhigno open محمود اوكي waxaan soo qaadanaa kan hore inoogu sameysnaa محمود اوكي open magaca u bixinaya محمود okay this is a network lagu sheegaya waa kan okay this router waa kan waa router this router kan waa ujeedaa magaciisa waxaa la yiraahdaa Soomaali magaca oo la baxna wuxuu noogu xiliyan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho kasoo gudub kan waa router kale this waa LAN networking waa kan waa PC kan waa mataqaana server web server sida website mataqaana loogu soo galo ama loo hoos galay website kan waa DNS server asagana wuxuu noogu xiriyaa LAN bal qaabkan ayuu mataqaana waxaan idin tusinaa sida isku xirmaan sida wada shaqeyn doonaan waxa mataqaana protocol ku noqon doono wax isku mataqaana fiilooyin sida isku xirmi doonaan PC-ga sida wada shaqeyn doona hadda PC-ga wada shaqeynaa sida ku ogaan kartaa sida ku ogaan karaa inay wada shaqeynayaan PC-ga double click ku sii waxaad tagtaa desktopkiisa markaa mataqaana IP configure aad tagtid waxaad arkaysaa IP address kan ayaa copy leedahay ama aad qaadanaysaa another PC kii labaad ayaa tagaynaa bal asagana waxaan tagaynaa ping command si aan u ogaano waxaan leenahay waa pinging gareynaynaa pinging button okay is ujeeda mataqaana inay wada shaqeyn ka wada dhaxayaan reply ayuu sameynayaa sida aragtaan okay ama waxaan ku garan kartaa inay wada shaqeynayaan waxaan soo qaadanaa this package way package-kaas ayaan waxaan kasoo direynaa PC-gan waxaan usoo direynaa PC-gan waxaan ku arkaysaa halkan inuu succeed yahay package-kan ayaa waxaan kasoo direynaa PC-gaas waxaan usoo direynaa PC-gan waxaa halkan ku arkaysaa inuu leeyahay succeed wuu soo gaaray okay intaas aan oga gudubna mataqaana LAN iyo networking insiisana qayb waxaan arkaynaa wireless sida u shaqeyn doonaan wireless okay no bal qaybta kamid wireless-ka wuxuu u shaqeeyaa sida tan waxaad ka arkaysaa mataqaana PC iyo mobile-kaaga laptop server qayb kalena waa tan mataqaana labadan qayb midna waa security midna waa mataqaana kan qayb waxaan u isticmaalaynaa by security ahaan qaybtan waxaan u isticmaalaynaa by mataqaana iska open maadaama ay la boorada markaa gashid ama aad tagtid moolka weyn waxaa arkaysaa mobilkaaga laptopga inuu internet kusoo qabto maxaa sababi karo meelo qaarna kuma soo qaban karo hadda ujeeda saddexdan qayb mobilkan waxa dhan uu kusoo qabtay waa qaybtan waa qayb aan security lahayn ama aan password aan lahayn qof walba mataqaana holkaas ama meesha soo gala internet inuu heli karo wax walba mataqaana inuu ka sameyn karo access point waxaa soo haray qaybtan kale qaybtan waa qayb security oo aan dadka mataqaana password ama security ama aan ka tirsaneyn apartmentigaas mooyaane aan communication aan la sameyn karin okay waxaan tusaya hadda waxaan soo qaadanayaa mobile okay mobile waxaan haystaa mataqaana wireless oo kale ah waa wireless uu leeyahay mataqaana sida internet ugu soo hadda inta dhigo soo qabsanaya aragtaan filayaa mobile automatically muujido xariiqladan aan ujeedin waxa soo qabsanaya access point ee wireless-ka ah laakiin haddaan qaybta security-ga aan soo dhigo ma soo qabsanayo kan kaas ayuu doonanayaa mataqaana kan waxaa la weydiinayaa password iyo mataqaana iyo username intaba ma hayso wuxuu aadayaa kaas aan mataqaana aan ahayn unsecurity ahayn sida ka aragtaan oo ujeeda linkaas ee aadaysa waayo dhinacan uu aadi waayo maxaa yeelay halka security buu leeyahay waa taasna mataqaana insha Allah taala casharada soo socda ayaan idinku sharxi doonaa iyo qaabka u kala bixi doonaa wireless-ka iyo waxyaabahaas oo dhan waxaa kaloo inoo xigi doona asagana voice communication telefoonada sida telefoonada loo isticmaalaa sida mataqaana gurigaaga line iPhone sidoo kale oo isticmaala telefoonada laga isticmaalo mataqaana internet-ka oo kale qaabka ayagana uga shaqeeyaan sida router-ka ugu shaqeeyaan ujeedna router-kan digital router waa router-kan ay wuxuu noogu xiriyaa mataqaana magaaladeena Muqdisho waa ujeedina umaleynaa Muqdisho ayaa ku qoran
okay this server this mobile this waxaa waaye mataqaana waxaa loogu talagalay kan oo guryaha oo kale kana waa mataqaana si toor switch ayuu ku xiran yahay switchka serverka ayuu ku xiran serverkaas ayaa mataqaana wada siin doona lab ayuu ku xiran yahay isoo waxaa loo isticmaalaa communication telefoonada markaas insha Allah casharada dambe ayaan mataqaana aad idinku sharxi doonaa ay qaybteen Cisco package kaas oo aan u isticmaali doono CCNA waxaa loogu talagalay magaalo to magaalo waxaan u gudbi doonaa GNS3 oo loo isticmaalo CCNB GNS3 waa kana sida aragtaan waa idin soo dhaweynaya GNS3 bal aan double click ku siino GNS3 ayaan noo kici doonaa okay GNS3 waa sida u shaqeyn doono siduu yahay maadaama hadda aan mataqaanaa uu yahay casharadeen wax hore dhacon waxaan furayaa mataqaanaa mid hore igu sameysna si aad u aragtaan bas network GNS3 waxaad ku arkaysaan adduunka dhan siduu iskugu xiran yahay oo kale mataqaanaa networking-ka iyo sidaan u sameeyey casharadaasna waxay noogu imaan doonaa casharada markaan gaarno CCNB-da okay waa kuwana sida routerada sida iskugu xiriyeen PC-da ugu xiriyeen internet-ka wada sida ugu xiran yahay iyo qaabka ay wada shaqeyn doonaan iyo wadamaday kala yihiin intaba hadda kan markaa idin soo qaaladii Soomaaliya waa Soomaaliya ayaa wuxuu toos ugu xiran yahay India waxay kusii aad ugu sii xiran tahay UAE Emirates UK USA isla markii waxay kusoo laabanaysaa mataqaana India network asaga dhan isku wada xiran kana waxaan ku qaadan doonaa casharada soo socda sida isku xiri doono wadan to wadan sida wada shaqeyn doonaan maxaa yeelay intaas ayaa ugu gudbeynaa waxaan u gudbi doonaa VMware sida u shaqeeyaa VMware waa kana waa mataqaana waa software ku sahlaya inaad networking computer badan aad hesho waa fahamsan Soomaa computer badan inaad hesho maxaa yeelay sida mataqaana hadda sawirkan oo kale oo noo cadeynaya waa internet-ka wuxuu ku xiran yahay routerka wuxuu ku xiran yahay lot of PC computer badan ayuu ku xiran yahay sidaan ka arkayna mataqaana mashqadan waa hub ama switch oo isticmaalaysa kana waa router kana waa internet-ka mataqaana toos routerka ugu xiran kana waa PC waxaana u jeedo waa IP address-ka domain name-ka ayaa mataqaana company-ga magaciisa mataqaana aniga waxaan iskaga magacaabay Maxamuud maadaama magacayga mataqaana u soo qaatay kan waa IP address-ka ku shaqeynaya gateway waxa uu ahaan doona mataqaana routerka gateway-giisa sidaan ay mataqaana ugu wada xiriyeen waa network isku wada xiran gabigiisaba marka maadaama oo qofka uu soo awoodo inuu computer badan soo gato waxa u sahli kara VMware workshop kaasoo mataqaana aad samaysanaysid mataqaana PC badan isla computerka ayaa waxa ka dhex sameynaysaa 3 PC 4 PC ayaa waxa sameynaysaa networking isla wada shaqeynaya IP address ka wada dhaxeeya kaas intaas ayaan gudbinaa aad ayaad ugu mahadsantihiin sida sharafta iyo qiimaha leh aan idin sheegana inaad nagala soo xiriiri kartiin Facebook-geena Maxamuud Cabdi ama waxaad tagi kartaa mataqaana YouTube-keena waxaad ku qori kartaa youtube/MC oo ka soo gaabay Maxamuud Cabdi Bacar waxaad tagaysaa page-keena waxaad tagaysaa mataqaana video-deena iyo waxyaabaha mataqaana soo bandhigno intaba waxaad ka helaysaa YouTube-keena waxa kaloo nagala soo xiriiri kartiin mataqaana hadda su'aalo ama aad qabtaan maaragtay inaad waxna weydiisaan rabtaa ama mataqaana maadooyin aad jeceshiin ama aad solution u baahan tihiin waxaad nagala soo xiriiri kartiin horta idin si aad u aragtaan waxa laga yaabaa dadka qaar inay indhaha ka gaabiyaan MC Bacar gmail.com ayaa isticmaalaa idin soo dhaweeyay si aad mataqaana aad si fiican ugu aragtaan waa mc.bacar@gmail.com وانا mahadsantihiin waxaan idin dhaafayaa intaas iyo nabadgelyo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.